waxaan soo gudbinayaa maanse yar oo gaaban oo runtii muujinaysa ama iftiiminaysa xanuunka ay maraan hablaha la kufsada ah. had iyo jeer ma dareensanin xanuunka ay maraan habluhu marka la kufsado. xanuunkaasay ka turjumaysaa, hablii bay ka hadlinaysaa la kufsaday. waxaana igu kalifay maansadan cawayar. arrinka cawayar runtii aad buu ii dhibay. buug baan qorayay aan u bixiyay dhaliisha dhaqanka Soomaalida. waxaa ii harsanaa chapter kaliya 10 chapter weeye. chapter iyo in yar baa ii harsanayd. chapterka ama cutubka aan islaha aad qortidaad ku dhamaysid buugga waan qori kari waayo. wallaahi waan qori kari waayo, waayo markan islaa qorba cawayar xanuunka ku dhacay iyo dhibaatada qabsatay ayaan la qori kari waayay. damiirkii ayaa ii diidan inaan qoro buuggii. waa qof kastoo damiir leh wuu u diidaya inaad hawl kale qabato adigoo og oo dareensan in cawayar xanuun iyo murugo ay meel la jiifto. maansooyinkuna waxay ku fiican yihiin marka qofku hal abuurka iyo maanso sameeyo, qalbigu ku qaboojinaya, waayo waad hadashay wixii aad doonaysay ku gubayay baad ka hadashay. arrinkaa cawayar markaa maansadu ayay ka hadlaysaa. kuma koobna cawayar oo kaliya, laakiin hablaha la kufsaday oo dhan ayay muujinaysaa xanuunka ay maraan. waxaad ka fikirtaa cawayar waa danyar, reer danyaray ka dhalatay. hooyadeed way xanuunsanaysaa oo xagga dhimirka oo miyirkeeda iyo maankeedii ma joogo. waxay ku jireen xero qaxoonti. aabbaheed isna indhaha ayuu ka liitay. inkastoo laygu yidhi alxamdulillah waa loo jaxo waa la caawiyey, laakiin indhaha ayuu ka liito si fiican waxba uma arkaynin. markii odaygii uu arkay inaanu reerkan isku wada hayn karaynin, wax dhaqaale aanu haysan oo danyar yahay, ayaa cawayar waxaa la geeyey xerada agoomaha. waa 13 jir, iyadoo intaasoo dhibaato adduuni ay haysato ayaa haddana waxaa ugu kordhay arrinkaasoo kasii xanuun badan in 8 nin ay cawayar isugu tageen ay kufsadeen. waa kufsi. kadibna cawayar halkii ku uuraysatay. bal waxaad sawirataa cawayar markay tagto sariirteeda ama furaashkeeda yar ay seexato ee aanay haysan wehel, hooyadeed ka xanuunsanayso, aabbaheed uu danyar yahay, cid u gargaaraysa iyo cid wax taraysa haba yaraatee aanu jirin. qabiilkuna sidiisa waynu naqaanaayo intaad waxaysato qabiilku wax ku yahay. qofkan danyaraha ah nolosha adag ku nool qabiilku waxba uma aha. cid u hiilisaana cawayar maanta ma haysato. haddii adiga ilmahaagii yaraa uu barwaaqo ku jiro ama qurbo joog ama guuda joogo, waxaa lagaa rabaa bal ilaah baan kugu dhaarshay waxaad isku daydaa haddii inuu damiir iyo diin iyo dadnimo kugu jirto, bal inuu waxaad isku daydaa. waan kaa codsanaya inaad isku daydo. aabbayaasha iyo hooyooyinkow, haddii maanta idinku aaladan tihiin ama qurbo jooga ama daba jooga oo bal intaad yara kacdo waxaad gashaa qolka ilmahaaga yara jiifo, inantaada yar eeg, sariirta yar ay ku jiifto, cunto yaroo fiican bay cuntay, ice cream baa loo raaciyey, nabad bay ku hurudaa. alxamdulillah, ilaahay ha idinku wado oo ilaahay dhibaato idinma keeno. laakiin arrinkaasi iyo ladnaantaasi mas-uuliyad bay wadataa. mas-uuliyadday wadataa waxa weeye inaad ka fikirtaad tidhaahdo waa maxay sababta ilmahayga yarina uu haysto barwaaqada intan la eg, cawayarna ay ugu jirto nolosha iyo tacadiga intaan la eg. ilaahay baa inoo sheegay. ilaahay uma waayin cawayar inuu noloshaa ka saaro, laakiin barwaaqada iyo nimcada aad ku jirto waa lagugu eegaya. diinteenna inoo sheegtay. wallaahi alcadiim waa lagugula xisaabtamaya. haddaad isleedii lagu weydiin maayo adigoo jooga oo cawayar arkaya oo dhegaysanaya murugada iyo dhibaatada haysata, haddaad wax kale u qaban kari weyday, $5 ma siisay, $10 ma siisay, ma u hadashay, ma u dooday, wuxuun ma u qabatay? wallaahi waa lagu weydiinaya, waa lana wada weydiinaya dhammaanteen. taa haddaan dhinaca uga gudbo, maansadani waxay u samaysan tahay, way gaaban tahay. inta hore waxay ka hadlaysaa xanuunka iyo murugada markay qolkeeda yar tagtay jiifsatay ee la wada seexdo. xanuunka iyo murugada qalbigeeda ku jira. waxa kale ka hadlaysaa oo ay tilmaamaysaa, hablahaasi tilmaamayaan ninka kufsaday nooca uu yahay, waana xaqiiq nooca uu yahay. kadibna way ducaysanaysaa. marka maasada marka sameeyay cidda hadlaysaa aniga ma aha. maasada anigu waan sameeyay, laakiin cidda hadlaysaa waa hablii la kufsaday. sidaa awgeed waxaan jeclaystay inay gabadhi maasada ay akhrido, qof dumar ii akhriyo. ilaahay khayr ha siiyo.
waxaa maansadii iga ogolaatay inay codkeeda igu soo duubto Faadimo Huruuse oo ah halabuur Soomaaliyeed inan maansooyinka iyo suugaanta samaysa aadna uga gubatay inantaa waxa ku dhacay oo si qiiro leh runtii maansada u tirisay waxaan kusoo gabagabeynayaa oon halkan uga duceynaya la ilaahay khayr ha idinka siiyo dadkii u kacay arrinkaa ka xumaaday rag iyo dumarba leh caawiyey ama dhaqaalaha ku caawiyaan ama qoraal ku caawi ama hadal ama u doode intiinaba ilaahay khayr idinka siiyo ha ugu horeyso ayaan maxamed inantaasi bulshada kaalin weyn bay ugu jirtaa runtii bulshada Soomaaliyeed haddaynu nahay qofku intuu nool yahay ee uu wax qabanayo ma ammaano gaariyaa sheego wuxuu waxaan nahay aasi og inantaasi hawl weyn bay bulshada oo haysa taariikhdana way xusi doontaa ayaana waxa la ayaanay ilaahay walaal khayr ku siiyo si fiican baad samaysay farraysin bay u samaysay ilaa imkana way wada min fadlakum waxaan ka codsanayaa $5 waxba kuma yeesho $10 waxba kuma yeesho waad ogtahay haddii aadad waxay u samaysay GoFundMe ayay u samaysay waad geli kartaa haddii aan halkaa ugu diri karinna waxaad ugu diri kartaa sad oo ama xawaalad baad geyn kartaa ugu diri kartaa ajarkeeduna intuu leeyahay lama qiyaasi karo hadalka ku dheeraan maayo imika waxa idin bilaabmaysa maansadii iyadoo qoraalana waan soo raacin doonaaye daawasho wanaagsan naftayda halaan halkeeda huqdiya saska hanaqayga habeen hurda seexan waaga ishaaraankiyo ishiifka hiirtaanyada hugunka taaha hirkiyo hafashada dareenka hadaaqaygiyo humaaga hundhurid hamrashada nuglaanta hawaawir asqow hallaabay haydaarada ruuxda haybshay hanqaarmay markaan hungoobay hagoog hadal ma iska waayay qalbiga murugadu hogaysay kashaa hinqashada hadraysa hiqlayn ilmadayda hoortay hugiyo maradayda qoysay qamuunyo dibna ay heartay ayaa bishimaha i heertay hurgumo haamaha i saaran hardood garbahayga hiigay hanaash socodkaan la tiicay hagaas cagajiid habaabay hantaaqiyo ciilla hoyday hu ceeba miyaan hagoogtay hoh iyo cako halakadayda hohey cako halakadayda waxaa hanqaladay gooyay haanraawe hamuum dayaysan haraaryadu maanka saaqday hamuum gorayaale hoolan hunguri lahidiid hadaadun halaaq hadow marin hallowsan hunati halaq iyo abeeso habaarqabe hagar aloosa hanfada hubsashada hilmaansan hacoo hugufoo hagaasa hulgiyo hunufaa habowsan hunaayo haweenu heelan halase hooska hulcamaaya halciyo hablihiiyo gurboodka halligan hootada ku heera halgaadoo hanaq wareema humaajida halista gooya hoog iyo haadaan ku tuura halaag iyo hoog horseeda ku hawlane halasahooda rabbow adigaan ku haybshay adaan gacantay u hoorshay adaan hiilkaa rabaaye hortayda gadaal hareerta heegada guudka iyo heelka hoosis naxariis hadhsiimo horraysiyo tii dambaysa halkii roon igu hagaaji